بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. sida qoraalka idinka muuqda waa su-aalihii jawaabo xalay facebook asxaabtii oo su-aalaha iga soo weydiiyeen jawaabahooda. insha allah asxaabtii youtube su-aalaha iga soo weydiiyeen waan arkay. insha allah igana habeen dambe xilligan oo kale ayaad iga helaysaa jawaabtiina. qofka u horeeya gabadhaa waxay tiri waxaan ku riyoodaa mar walba wiil aan xiriir lahaan jirnay oon kala harnay oo aniga sabab u ahay inaan kala harno ayaa mar walba riyo ku arkaa. mar anagoo heshiisa, mar anagoo heshiin rabno oo yacni nana heshiisiinayo. mar waxaan ku riyoodaa anigoo dad caadiska inay mashaakil dhicin oo kale. dadna anagoo marna waxay tiri anagoo guurka wada hadleyna. cafan waxaa muuqato inay wiilkaa weli jeceshahay. waayo markaa su-aasha weydiina weli iima soo jawaabin. mar walba haddee arrintaa jirto horta badanaaba haddeeba soo noqnoqoto, waayo waxay tiri igu soo noqnoqotay. haddeeba soo noqnoqoto riyada waa xadiisa nafs. hadday tahay riyo, aniga waxaan ka soo hadlay muuqaal u qaas ah labada qofood oo xiriirka ka dhexeeyay dadkii hataa kala haray. qaybta descriptionka ay kuu soo dhigayaa, meesha waad ka daawan kartaa insha allah. jawaabtan waxaa iskale gabadhii isbuucii hore igu soo qortay facebooka. laba su-aalood ayay ahaayeen. labada su-aalood mid waxay tiri waxaan ku riyooday i hortaagan oo waxba igu sameyneyn laakiin fiirinaya. su-aasha kalena waxay ahayd aniga familkeyga oo masas eryaneyno nasoo weeraro, yacni masaskii aan marna mas aanoo dilaayo iyagoo marna maskii dilaayo marna idigoo eryanayo oo yacni maskii ilaa gudkiisa uu ka gala. taa waxay tiri waxaa waadaxa iska muuqata inay cadaawo jirto laakiin oo aada u daciif ah. cadow qalbiga la iskaga kaanico ma jiro oo waxba kaa qaadi karin ayay u egtahay riyada. wallaahu yaclam, laakiin idinkaa ku guuleysanayo mar walba guusha idinkaa iskale, yacni wax saameyn idinkuma laha. waxaa darnaan lahayd inuu masaska idin qaniinaan, mas aa ka cabsitaan, mas dhibaato idin geystaan, sidoo kale eega hataa. marka haddee sidaa tahay hadda riyada waa riyo wanaagsan. waa kheyr badan inuu rabbi idinla jiro. rubama idinkaa diin dad ahlul cibaadaa, dad wanaagsan masalo sadaqaa sababta maaqaan, yacni wax ilaahay xaggiisa ximaaye iyo ilaalmo xagga rabbi inay idinla jirtay tilmaamaysaa. wallaahu yaclam. su-aasha saddexaad, wiilkaa wuxuu yidhi waxaan ahay qof caadi ahaan xanuunsan. xanuunka noocuu yahayna ma sheegin. wuxuu yidhi waxaan ku riyoodaa mar walba qabuuraha ayaa waxaan u arkaa siyaabo kala duwan. in badanaa kasoo hadlay qabuura, hataa mufasiriin badanaa ka hadla. qabuuraha daariye ku aragtid oadna xanuunka ku hay uu yahay xanuun ruuxi ah, waa inuu ahaadayaa xanuun ruuxi. xanuunadu way kala yihiin, waa mid dhakhtar u baahan iyo mid ruqyo u baahan. haddaad tahay qof xanuun ruuxi hayo oo mar walbana qabuuraha kuugu soo noqnoqdaan, akiid sixiraa jiro. weliba waxaa jira sixirka oo ku duugan maqaabeerta. wacayaadu billaah, subxaana allah. yacni dhibaato noocaas inay jirtaa macquul ah. mid kale way noqon kartaa waham iyo niyadaada oo wax kuu sheegayso maadaamaad xanuunsan tahay way noqon kartaa. laakiin inta badan fasirka riyada noocaas oo kalea waxay noqdaa sixir lagugu duugay qabuuraha. ilaaha kaa caafiya, subxaana allah. ruqyo laazima inaa isruqyeysid. maxay ahayd u tagtid culimada dadka quraamiso, waa muhiim. gabadhan waxay tiri habeen ayaan duceystay anigoo kurbaysan seexday, waxaana ku riyooday iftiin samada. iftiin samada yacni ugu imaanayo, iftiin samada kaaga imaanayo aad ka arkaysid. waa duco mustajaab ah ficlan. adigana waxaa tiri waan duceystay. iftiin samada kaaga imaanayo waxay tilmaamaysaa guul iyo sareen, hidaayay tilmaamaysaa iyo iimaan rabbi kuuga arsaaqahay. waxay kaloo tilmaamaysaa hidaaye bacda dalaala, yacni qof lunsanaa kabacdi laga yaaba habeenka maadaama aad duceysanaysa oynaysa laga yaaba dunuub inaad ka toobad keentay. hadday ficlan sidaa tahay waa arrin aada u fiicane. wallaahi maqaariyada aan ku farxay waxay tilmaamaysaa haddii arrintaa ficlan ay jirtay inuu rabbi toobada ka aqbalay. ibnu siriin mar wuxuu leeyahay haddaa ku aragtid samado iftiinka soo baxayo waxay tilmaamaysaa shilaay qoomameen qof yacni oo diintiisa lumiyey.
laakiin culimmada kale badanaa waxay isku raaceen aragtida samada riyooyin aad u fiican inay tahay. Xataa qofka marka uu qoomameynayo waa arrin fiican soo maaha. Qofka oo iimaanka leh ayaa qoomamo dareemay, kana iimaanka leh waxba ma qoomamay shaqadiisa maaha. Calaa kulli xaal aragtida samada ma xumo, aragtida iftiinkana ma xumo. Hidaaye iyo nuur iyo taqwad iyo siraatal mustaqiim ay tilmaamaysaa hadduu Ilaahay idmo. Wallaahu yaclam. Su-aasha dambe ku xigtaan dhehe. Gabadha waxay leedahay waxaan ku riyoodaa dadka caanka ah, khaasatan kuwa ugu dambeeya mar walba. Gabadha markaa qoraalkeeda arkay qadka way ka maqneed. Maadaama halkaan ugu jawaabay, halkaan uu kugu soo jawaabaya. Waxay tiri dadka caanka ayaa arkaa way ii aadnaheena dad badan ay sheegtay adiga oo ayaantan trend ah. Markaa arkaysid dadka caanka waa dadka adi mar walba aad daawanaysid. Yacni su-aalahan rabi inaan ku weydiiyo waxay ahayd qofka mar walba aad daawanaysid oo arkaysid haddii matalan aad tahay dadka ku mashquulsan waxyaabaha hadda beryahan dhadhacayo badanaa waxaa waa axaadiisa nafs. Yacni riima la dhihi karo matalan haddii adiga musalsal la socotay mise arrimaha hadda tiktok ka dhacayo waxyaabaha aad la socotid dadkaas soo xustay magacyadooda waa dadka hadda taranda ah oo yacni magacooda la haysto. Sidaa darteed oo la magacayo mar walba. Sidaa darteed midaan oo kale hadda riila ma dhihi karo waa axaadiisa nafs walaalayaal in badan waa ka hadlaa. Haddii la yiraahdo waa riyo dadka caankaa sideeda waa riyo wanaagsan. Waa sareen iyo qiimo yacni maaha riyo xun. Wallaahu yaclam. Sidaa ogtihiin dad badan xalay Facebook waxaan ugu jawaabay luuqa. Codsi iyaga xaggooda ka yimaaday ayuu u badnaa. Laakiin riyooyinka badanaaba ma ahayn riyo oo qaas ah. Waxaan idinka codsanaa walaalayaal haddii riyadiina qaas ahayn inaad qaybta YouTube-ka aad ku soo qortaan oo ana halkaan idinku soo jawaabo. Waayo meeshaas isbuuci hal mar bis sabti walbo yacni ayaan habeen walbo sabti soo galay. Ayaan Facebook galay sidaa darteed halkaa ku soo qorto qaybta YouTube-ka insha Allah. Weli waxaa noo socdo su-aalihii jawaabihii. Gabadha waxay tiri waxaan ahay gabar weli ma guursanin waxaana ku riyooday anigoo uur leh. Waxay tiri muhiim maaha inta kale. Muhiimaddu waxaa waaye gabadhaan guursanin oo uur leh micnooyin badan ay tilmaameen. Waxaa ka koow ah isbeddel nololeed. Waxay kaloo noqon kartaa guur mise doonis insha Allah. Waxaa kaloo noqon karaa asraar sir iyo arrimo ee qarinaysa yacni oo culays ku haya. Sidoo kale waxay noqon kartaa oo in badan mufasiriin ay leeyihiin culays iyo humuum dhibaatooyin ciriiriyo culays ay dareemayso. Wallaahu yaclam. Yacni marka aniga hadda arrimahaanayta kala duwan aan sheegayo waxaa macquul ah qof walba xaalad gooni inuu ku sugan yahay. Qofkii ciriiriyo culays dareemaya ficlan midaa way ka turjumaysaa. Yacni xamilku waxaa waaye uurka waa xamil waa qaaditaan culays iyo waxyaabaha. Haddii ay jirin arrimaha insha Allah isbeddel nololeed arrimo isbeddelayo. Wallaahu yaclam. Halkaasaan ku soo koobay walaalayaal. Noo sheer gareey asxaabtiina la wadaaga. Wassalaamu calaykum.